dagaalka aan ku jirno haddaan ku guul daraysano wallaahi inaysan waddanka qof naga reebin hal qof inaysan naga reebin ilaahay naguma guul dareeyo marka ilaa luglaawaa loo kaco madaxweynuhu ha na hor kaco madaxweyne ku-xigeenku ha na hor kaco gudoomiyaha baarlamaanku ha na hor kaco annaguna sida xabadaha loo ridaan naqaanaa xabadahaan ridaynaa sidaa dagaalka loo qorsheeyaan naqaanaa waa qorshaynaynaa ilaahay weliganya dagaalan hogaaminay naguma guul dareen weliga kuma guul daraysa ilahay naga mahad celina diyaaraan nahay insha allahu tacaala aan meesha ka kacno hakadka dagaalku galay wuxuu u yahay ayaga yacni qofku haddii inta la soo eriyo oo cadow eriyaa halba gadaal fiirinaa cadowga arki waayo waa nasana markuu nasto wuxuu isleeyahy war cadowgii waa kaa istaagee ma kaa baqay xaggaad ka gashaa saad yeeshaa marka waxaan soo jeedinaa inaan cadowga laga harin inaan jaanis la siin mar kasta uu jaanis helo risaasow helaa meelow helaa fakerow helaa farsamow helaa waxaan soo jeedinaa insha allahu tacaala inaan jaanis la siin waa mahadsantihiin nin imaam ahay waa amirmuminiin ahay oo cumar cabdulcasiis la dhihi jiray oo nin cadaalad badan ahaa xilligiisii ayaa waxaa isla daaqi jiray ariga iyo dhurwaaga iyo maaragta dawcada iyo kulli waana is nabadgeli jireen habeenkii dambe u dhintay markuu dhintay ayaa islaan ri waxaa ka cunay waraabe waxay tiri warrideed waa waraabuhu cunaye amirmuminiinaa dhintay marka madaxweynow waxaan kaa rajaynaynaa insha allahu tacaalaa cumar cabdulcasiis inaad noqoto camalkaadana aad jinna ku gasho dadkaanuna cadaaladaada ay ku heshiiyaan cadowga isaga kiciyaan maaragtay ayna ku guulaystaan golaha caawa la dhisaa dadkuna waxaan rajaynaynaa inay ku addaaci doonaan ilaahay baa abuurtay ilaahay baa ku addoomihaaba ilaahay baa kuu rabaynaya ilaahay baa maaragtay ku raacsiinaya golaha caawa loo hambaleynaayo guddoomiyaha golaha geedo qorow waa saaxiibkay niman aada isu naqan waaye ragga kaleo ku xigana anugu hadda waxaan leeyahay hambalyo aada uma aqaano laakiin hambalyo adinkana intaas aan sheegay aa laydinka rabaa xaqiiqadu waxay tahay warka markii laysu yimaado in xaqa laysu sheega saxa qofkii dhibsanaa asagay u taallaa qofkii ku raaxaysanaana asagay u taallaa qofkii dhibsanaa waxuu maciis yahay shaydaan qofkii ku raaxaysanaana ilaahay rasuulkiisa u maciisaya adinkana waxaa laydinka rabaa intaasoo kale inta aad maamushaanna waxaa laga rabaa inayda adeecaan anuu idiin hambaleyn maayee waxaan idin leeyahay mas-uuliyad dhib badanaa laydin saaray allaha idiin saqiro intaas haddaan intaa uga gudbo suldaanka saaxiibkay waaye madaxdiisana waa ahaa jiray insha allahu tacaalaa waa nin aan aqaano oo runtii qiimo badan waaye arrinta ou sheegay waa arrin wada faran waaye ilaahay naguma khasaariyo dagaalka aan ku jirno